magacaygu waa Nijma Ali Cabdi waxaan kamid ahay arday dhigata jaamacadaha ku yaala Soomaaliya mid kamid ah haddaan u gudagalo faa'iidada ay dumarku ama gabadhu u leedahay waxbarashada aniga qodobo yar ku soo koobayo waxaan dhilahay qodobka koowaad waxaan kamid ah in gabadhu ay yeelato grad ahaan markii la leeyahay ay ku bacdo haday noqoto dhanka dhaqankeeda ama haday noqoto dhanka cilmigeeda inay gabadhu ku bacdo ayna la tartanto dhigeeda haday noqoto dumar iyo ragba maanta dunidana arkaysan waxbarashada badan oo tartamada badan oo dhanka oo siyaasadaha dhanka maamulada inay xataa gabadh ganacsato ay noqotay maskaxdeedu iyo wax soo saarkeedu hamsar mar walba hansar uu leeyahay sidoo kale waxa dhihi karaa qodobka kale aan dhihi karo gabadha haday waxbarashada ay baratay ku adkaato faa'iido ay leedahay inay gabadhu arday doonaya barashada IT-ga iyadoo aad ku baranayso muddo kooban hadii aad tahay arday daneynaya barashada kombiyuutarka laabka iyo ku hadalka luqadaha Ingiriiska Heritage Academic waxa uu ku hayaa koorsooyinka kala ah Active Director the Human Service Computer Communication Networking American English koorsooyinkaasi waxa ay soconayaan muddo dhan 3 bilood halkan waa Heritage Academic sida aad u jeedaan systemka cusub ee sanadkan ayaa halkan ku yaala waad u jeedaan goobta aan fadhiyo sida ay u qurxan tahay adiga kaliga ayaa ku raaxaysanaya kombiyuutarkaada Heritage Academic waa academic diyaarinaya arday khibradooda aad loo diyaarinayo sidoo kale iskuulka waxa uu diyaar ku leeyahay practical joogto ah oo loogu talagalay ardayda baranaysa koorsooyinka aan kor ku soo xusay ay noqoto wax soo saar ay yeelato ay nolosha u noolaanin iska noolo cab seexo ka ay yeelato ujeedo yani ay u nooshahay inay hansareeto qof wax soo saarayo qof wax urinayo badanaana dumarka hadii la dhaho way ka maskax badan yihiin wayna ka urin badan yihiin ragga sidoo kale qodobka saddexaad inaysan dayalsan nafteeda badana maanta dumarka aad arkayso waxa arkaysaa gabdho aan naftooda iyo shakhsiyadooda aan qiimeyneynin gabadha markay wax barato waxay yeelanaysaa ujeedo cad waxay diidaysaa kana fogaanaysaa wax ayada shakhsiyadeeda ama nafteeda hoos u dhigaayo waxayna mar walba xooga saaraysaa waxa ayada qiimeenayo sarana u qaadayo intaas ku soo gabagabeyna ma santiin